ka sheekay restauranti maqaayadani marka ugu horeyso aad ilinkeeda aad timaado ama albaabkeeda waxaa ku baarayso amniga qaabilsan dumar marka aad gudaha maqaayadani aad gashidna waxaa dalabkaaga qaadayo dumar sidoo kale biilka ama lacagta aad isticmaashay waxaa kaa qabanayso qof dumar ah oo kaashirka kuu fadhida waxaana maamulka ah dumar sidoo kale aasaasaha ama milkiilaha maqaayadanna waa dumar sheekadan cajiibka ahna waxaa idin soo gudbinaysa anigoo dumar ah maqaayadan wax weeyaan maqaayad cunto iyo cabitaano kala duwan lagu sameeyo marka ugu horeysa waxa lagu sameeyo cunto Soomaaliyeed nooca doonto ha noqoto iyo cunto Asian ah Italian food fast food waxa dhan lagu sameeyaa iyo cabitaano kala duwan maxaa adeegyo aad deertiin maqaayadaha kale oo ka jira magaalada Muqdisho wallahi maqaayadaha Muqdisho adeeg ahaan hadii la noqdo isku adeegi un dadka qaar ama bulshada markay arkeen maqaayadan cajiibka ah ee wada dumarka ah waxay isweydiiyeen maadaama amnigu ay qaabilsan yihiin haween rag iyo abaaraha okay waa su'aal muhiim ah dad badan ay isweydiiyeen rag waxaan u baarnaa laba siyaabood mid waxa weeyaan waxaan nagu dhagan maqaaxi kale aniga aan leeyahay oo la dhaho Posh dadka badankood way yaqaaniin ilaalida Posh ayaa joogta dadka baarto ama si gabdhaheen waxay isticmaalaan mashiinka yaraayo dadka korka sida looga marinayay labadaba isticmaalnaa marka laga hadlaayo amniga maadaama maqaayada ammaankeeda ay qaabilsan yihiin ilaalad dumar ah ma isleedahay dhanka xaqiijinta amniga ama nabadgelyada goobta dumarku way ka baxsan karaan wallahi waxaan aaminsanahay dumarka inay qaban karaan shaqada ragga qabtaan laba jibaarkeeda ama mid ka wanaagsan ama mid ka maaragta ka tayo badan waxaan filayaa xaruntan inay tahay tii afraad oo adiga aad ka tahay aasaase ama maamul maxaad yani dadka Soomaaliyeed oo aad la wadaagaysaa oo kamid ah ganacsiga faa'iidadiisa gaar ahaan dumar adigoo ah gabar haweeney ama hooyo ah hadana sidee kugu suurta gashay in intaas oo xarun ah aad maamulkeeda haysid horta ganacsi marka bilaabaysid haduu yahay 20 haduu yahay mid yar haduu yahay mid weyn horta waxay leedahay caqabado badan oo runtii aad la soo kula soo gudboonanayaan qofka bini'aadankana markuu shaqo bilaabayo wax walba dhinac walba intuu ka fiiro u diyaar garooba ma aha wax sahlan laakiin wax aan la qabsaday oo diyaar aan u noqday aan u soo taabashaysto weeyaan dumar badan oo Soomaaliyeed baa ku taamay in ganacsi ama hal abuur ay geliyaan kuwaasi maxad leedahay taladaada ugu dambayso qof kasta hamigiisa uu gaari karaa haduu dadaalo ganacsiga iyo hor socodkana ma aha meesha intay la eg tahay waxaan aaminsanahay aniga shalay mid baan ku bilaabay maanta 4 bay maraysaa barina inaan 100 gaari karo gabar kasta oo Soomaaliyeed isku daydo ay try garayso meel yarde ka bilaado way koraysaa ka sheekay oo customerkeedan kamid ahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in nala furo meel oo gabdho nooga shaqeynayaan waiter noo yihiin cunto noo karinayaan na baarayaan wax kasta noo sameynayaan alxamdulillah maadaama ay rabto rag inay na dhaafsiiso oo raggaan la simano rag ba wax baara dumar ba maanta wax baaraya wax kasta sameynaya cunto karinaya waitera everything noo qabanaya aad iyo aad ba mana ugu mahad celinaya oo ku faraxsanay horumarka aan gaadhnay oo magaalada Muqdisho oo ka waxaan leeyahay manaar inta in ka badan hore u sii soco waxa taa qof oo ku dayasho mudan ma sha Allah si aad iyo aad u fiican waliga yaalahay meel inta fadhiisto koobiyanta ka dalbado meelaha qaar 2 saacadood baa la sugaa meeshan 5 minutes baa wax walba lagu keenayaa meel oo servicekeedu uu cool yahay oo aad iyo aad u buuxa weeyaan oo wax meel loo dhigay inay rag iyo dumar la isku mid maaha naga dumarka mar walba noo fiican